Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti haboon daawada leedilkiin baa ku soo dhawaada qodob-reedkan oo aan ka diyaarinay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyadoona maanta la filayo in la shaaciyo natiijada codadka doorashada xilka madaxweynaha ee Soomaaliland aroornimadii subaxnimadii shalay taariikhduna ay ku beegneed 13 November waxaa si rasmi ah deegaanada Soomaaliland kaga bilowday codbixinta doorashooyinka xilka madaxweynaha iyo doorashooyinka kale ee isa saaran ee xisbiyada waxaana xilligan tartamay labada musharax ee kala Cabdiraxmaan Ciro oo ka socday xisbiga wadani Muuse Biixi Cabdi oo isna hogaaminayay xisbiga Kulmiye iyo Faysal Cali Waraabe oo ka socday xisbiga UCID waxaana hadda natiijada hordhaca ee shanta gobol ee Soomaaliland ee doorashooyinka ay ka dhaceen hogaaminaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isagoona la sheegay in codadka inta badan isagoo ka helay goboladaasi inkastoo guddiga doorashooyinka ama komishinka doorashooyinka si rasmi aysan u shaacin natiijada codeynta balse warar hoose ay helayso warbaahinta Jowhar Media Network ayaa waxay sheegayaan in hoggaanka codadka tirinta xilligan uu hayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ee la tartamaya musharaxiinta kala Faysal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi oo labadooda ka kala socday xisbiyada UCID iyo Kulmiye waxaana hadda lagu soo waramayaa in xisbiga uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ee xisbigiisuna yahay wadani hoggaanka uu hayo waxaana sidoo kale ku soo xiga Muuse Biixi Cabdi oo isna u tartamaya xisbiga Kulmiye wararka sidoo kale ka imaanaya deegaanada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in gobolada qaarkood ay ka bilowdaan dabaaldegyo shacabka ay ku muujinayaan in ayaga ay guuleysteen waa shacabkii u codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro inkastoo tirinta codadku weli ay socdaan haddana waxaa jira warar hoose oo aynu helayno isla markaana sheegaya in tiradii ugu badneed ee dadku ay u codeeyeen xisbiga wadani xisbiga Kulmiye isla markaana uu hogaaminayay Muuse Biixi Cabdi ayaa isna rajo wanaagsan ka qaba magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland inkastoo magaalada Burco ee gobolka Togdheer codadkii ugu badnaa la soo sheegayo inuu ku helay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro balse Maroodijeex caasimadiisa Hargeysa lagu soo waramayo ama laga soo tawinayo in xisbiga Kulmiye tiradii ugu badneed isagoo ka helay guriga shaqaalaha oo ah halka ay ku codeeyeen musharaxiinta ee magaalada Hargeysa ayaa la tilmaamayaa in xubnaha musharaxiinta codadka ay ka dhigteen isla markaana dadka ay kula dardaarmiyeen in iyagu ay taageeraan iyadoona xisbi waliba ama musharax waliba oo sulduub ugu jiro inuu isaga u guuleysto kuraasta ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland saacadaha fudud inagu soo haya ayaa lagu wadaa in komishinka doorashooyinku ay ku dhawaaqaan natiijada codeynta ee musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo kuraasta kale ee isa saaran ee xisbiyada ee Soomaaliland waxaana indhaha caalamka ay wada eegayaan waqtigan hadba natiijada ka soo baxda codeynta shacabka Soomaaliland ee maalnimadii shalay u dareeray doorashada tooska ama doorashada qofka iyo codka ee Soomaaliland inta badan ay ku qabsato arrimaha doorashooyinka